Waa in salaam asxaabteeda sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan oo koo yar waxaa dhimatay hooyadeed mid ayaa rooneed oo gabadhii kalena soo korisay muddo kadib gabdhihii waa ay weynaadeen walaasheed waxay ka fikirtay gabadhan say waxbarasho ku gey lahayd markii dambe ayay waxay geysay iskool laakiin gabadhaas iskoolkaas maysan rabin ee maysan ku qanacsaneen gabadhaas tin maysan lahayn dadkana waa ay ku caajireen oo mar walba markay arkaan way ku qosli jireen oo timo la-aan ayay ahayd gabadhaas markii subaxdii dambe ayaa gabadhii soo kacday gabadhii ayaa ku dhahday iskoolka waqtigiisa ayaa la gaaray ee labiso gabadhiina waa is diyaarisay gabadhiina waxay maagtay gabdhihii lahadan markay arkeen waa ay ku qosqosleen oo timahayga caawa ayay dhaheen gabadhii warkooda maysan dhegeysan way ay soo carartay oo banaan duur ayay iska imaatay markaas ayay waxay aragtay geed ka duwan geedaha markaas ayay isweydiisay geedka maxaa wasan geedkii waa oo ifay markaas ayay gabadhii cabsatay geedkii markuu oo la hadlay oo meel ay ku faagsatay ayay raasatay kabacdi waa ay ka carartay geedkii markii dambe oo uu wacay gabadhii marka waa uu imaaday gabadhii wuxuu siiyay 2 shallo wuxuuna ku dhahay mid ka mid ah ku shallayso waxaad noqon doontaa qof timo aad u qurux badan yeelata gabadhiina waa ay soo qaadatay markaas ay waxaa loo sii sheegay in ay wax rabtana weydiisan karto gabadhii xaafadda markii ay keensatana waxay bilowday inay ku shallaysato gabadhii wax yar kabacdina waxay yeelatay timo aad u qurux badan gabadhii waa ay ka fikirtay waxay ku sameyn lahayd gabadhiina waxay yeesheen guri aad u weyn gabadhiina waxbarashadeeda ayay sii wadatay muddo kadibna gabadhii waxay noqotay maclimad labadii gabdhood nolol fiican ayay ku noolaadeen sheekadeenina halkaas ayay ku dhamaatay